جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. إسلامنا جاء ليبقى. بسم الله الرحمن الرحيم. كلنتو عن وناكسن ومركلي برنامجكينا دردارن oo aynu maanta idinku soo gudbin doono kalimaad waana ah wacyigelina dardaaran ah dhaxal u ah ummadda islaamka oo idil oo uu dhawaan jeediyay Sheekh Maxamed Cabdi Umal kadib markii ay jariirad Faransiis ay soo daabacday aflagaado ay ku aflagaadeynayso subhana rasuulkii sallallahu wasalaamu alayhi. haddaba kelmadaha qiimaha iyo qaayaha badan ee sheekhu inoo jeedinayo nala daawasho wacan. alxamdulillahi rabbil aalamiin وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. أحبتي في الله مالمهن والله وصعنا لبعتها شرته iyo xadgudubka lagu hayo nabigeena sallallahu alayhi wasallam iyo diinteena oo regalbeedka iyo warbaahintooda iyo sufahadoodu ay ku hayaan dawladahooda iyo madaxdooduna ay markay ugu yar tahay ama ku taageersan yihiin ama ay tahay ma samaynin kumana talinin laakiin ima xumaynin waa ka ugu roon kama xumaanin. in anbiyada ilaahay rasuusha lagu xadgudbo wax cusub ma maalintii ilaahay rasuusha soo diray xaq iyo baatilkuna laga tanka bilaabeen ila qiyaamadu ka iimaanayso ayda iyo aflagaadadaasi waana jirtay waana jiri doonta. anbiyada ilaahay rasuusha iyo dadka xaqa wataay mar walba mowqifkoodu wax weeye si edabsan inay xaqa u muujiyaan oo burhaanta iyo xujada saaraan. kuwa ka soo horjeedana caadadooda waxay aan jirtay inay caytan iyo aflagaado shaqo ka dhigtaan. qasaska quraanku inoo sheegayna macnahaas ay tilmaamayaan. nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu alayhi xilligii ilaahay soo diray dib badan buu kala kulmay dadkii uu yimid reerkiisii adeeradii ilmaadeeradii iyo dhibka u badan kala kulmay. ay aflagaado waa saaxib waa kaahin waa beenaale waa waalayo ma miyir qabo waxayna ku dhihin ma leh صلوات ربي والسلام عليه سيد القرآن كله شيء لكن مع ذلك إلهي باكافي ربي وحي القرآن كريم كاكوير والنبي صلى الله عليه وسلم كوير حقا لغوغوسو دجيي ددك او شيغو لا جهر قالدان عيتمay sanay isaga jeesalay nabiga sallallahu alayhi wasallam annaga ka kaafinay kuwan jeesjeesaya annaga kaaga filano ka kaafinay baa la yiri kuwaasoo ilaahay cid aan ahayn ilaah ka dhiganay way ogaan doonaan. rabbigii baa kaafiyay nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu alayhi sidaas daraadeed dacaayada iyo cayda iyo aflagaadadu way iska socotay isaguna tiisu watay rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu alayhi waana ka guul gaaray markii u dambeysay. nabigeena sallallahu alayhi wasallam aflagaadayntii hore iyo tan lagu sameeyo midna wax yeeli maayo maxaa yeelay rabbigii baa doortay oo rabbigii baa qadariyay oo rabbigii baa kor yeelay oo inta dhulka joogtay inta kor jirtaba asagay amaanayaan oo ku sallinayaan. sida rabbigeen quraanka kariimka inoogu sheegay allah baa amaanaya oo malaa'ikta dhexdeeda amaanta nabi maxamed ku haya. nin alla amaantiisa haya gaal buuriye qab ah oo najis ah aydiisu maxay yeeli waay. malaa'ikta rabbi baa tabaaraka wa taala ku sallinayso u ducaynaysa maxay yeeli kartaa gaal hadal xun oo sameeyay. mu'miniinta inta amaanaya bilyan iyo nus muslimiinta caalamka maanta ku nool
ayaa ku sallinayso u ducaynaysa salawaatu rabbi wasalaamu calayh ammaanaysoo jecel salawaatu rabbi wasalaamu calayh gaal xun warkiisu muxuu yeeli waya marka bal iska dhaafay xadiiska nebiga sida ku timi salawaatu rabbi wasalaamu calayh yacni xayawaanaadka iyo jamaadaadka xataa quraanjada godka ku jirta iyo malayga badda ku jiraayay nebi maxamed bay u ducaynayaan salawaatu rabbi wasalaamu calayh nebi maxamed bay ammaanayaan salawaatu rabbi wasalaamu calayh wax weynoo marka ay u geysanaysa ma jirto rasuulkeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh maxaa yeele rabbigii baa garab taagan saa ay tahay haddana rabbi baa garab taagan waxaa dhacday hadda ka hor nebigeenna sal alla alay waslam dumarkiisa qaar ka mid ayaa waxay ku kaceen dhaqan waxoogaa aan nebiga munaasib ku ahayn waa khaldameen rabbi baa tabaaraka wa tacaala aayad soo dejiyey waxaa lagu yidhi wain tadaahara calayh haddaad nebi maxamed isu kaalmaysataan oo isugu tagtaan faina allah huwa mawlaah ilahay baa garab taagan wajibriilu jibriilna waa garab taagayn wasaalixu lmu'miniina mu'miniinta intooda wanaagsanna waa garab taagayn mu'miniinta wan wanaagsan waalmalaa'ikatu bacda dalika dahiir intaasoo dhan markii laga soo tagana malaa'igtii baa garab taagan oo u hiilinaysa waa nin ilaahay garab taagan yahay oo u hiilinayo hiilo kale oo badan uma baahna rabbigii baa u hiiliyey haddana u hiilinaya tabaaraka wa tacala sidaas daraaddeed ayuu rabbi tabaaraka wa tacaala dagaal inuu ku qaadayo u ballan qaaday ninkii awliyadiisoo nebi maxamed ugu sarreeyo salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ka ag dhowaada ilaahay dagaal buu ku iclaamiyey aakhare soo ma aha alla tabaaraka wa tacaala wuxuu sheegay adduunkana inuu lacnaday oo naxariista ka fogeeyey aakharana rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu u ballan qaaday cadaab ihaaneeyo oo dulleeya waxayna u badan tahay inuusan gaadhinba wakhtigaase ilaahay cuquubadiisu ku soo degdegto sida sunnada ilaahay ay tahay tabaaraka wa tacaala nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka waxyaalahaas dhacaya horeyna u dhacay inay dhibaata ku gaadho isagoo qabrigiisa ku jira iska badaaye salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ilaahay darajaad buu ku siinaya oo siyaadaa lagu siinaya maxaa yeelay ilaahay dartii baa loo dhibaya ilaahay dartii baa loo caayaya tawxiidkuu faafiyey addoommadu ilaahay ku xidhay xaqa rabbi buu u dagaalamay taasaa lagu caayaya xasadkaasaa lagu haystaa sidaas daraaddeed darajaad baa ilaahay ku siinaya oo waxbuu ku helayaa mooye dhib ku gaari maayo nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh dhanka kale markaad fiiriso gaaladani ujeeddooyin bay leeyihiin markay muslimiinta ay istifzaaz ku samaynayaanoo muqadasaadkooda ay meel kaga dhacayaan ujeeddaday leeyihiin waa ujeeddooyin fara badan laakiin midday iyagu rabeen mid aan ahayn buu ilaahay mar badan ka dhaliyaa dhacdadii nabigeenna sal lay waslam gurigiisa lagu xadgudbay hadda ka hor ee xaaskiisa uu dumarka ugu jeclaa caaisha ay gaaladu yidhaahdeen way zinaysatay xaashaaha ee guriga nebiga sal lay waslam iyo magaaladii madiine iyo muslimiintiiba bil kaamila la gilgilanaysa ilaa waxyigu soo degay dhacdadii nooca ahayd rabbi tabaaraka wa tacaala markuu aayaad soo dejiye wuxuu yidhi shar inay idiin tahay ha u malaynina khayr bay idiin tahay wax khayr badan baa ka dhashay ilaa dhowr iyo 10 aayadood oo qur-aanka ka mid oo ilaa maanta aan akhriyayna dhacdadaa ku soo degtay gurigii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu aayaad samada ka soo degay ayaa rabbi tabaaraka wa tacaala dacaayadii iyo beentii meesha kaga saaray khayr bay ahayd wanaag iyo aadaab fara badan baa ka dhalatay oo ummadan u taalla ilaa qiyaami saaca dhacdadii nabigeenna dhibkii lagu sameeyey magaalada maka iyo saxaabadiisa ay qaxeen ay hijiroodeen culays badan bay ahayd laakiin khayr badan baa ka dhashay dowladdii madiina ka dhalatay heshiiskii xudaybiya ee saxaabada go'aamadiisa iyo qodobadiisa ay xamili kari waayeen in badanoo ka mida aad u dhib badnaa allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ka dhaliyey fatx mubiin ah 2 sano gudahood baa muslimiinta tiradoodii waxay islabalaabtay intaasoo goor heshiiskaa qodobadiisii markii ay fuleen kadib heshiiskii bay dacwadu ka faa'iidaysatay meel aad adiga dhib ka filaysaa ilaahay khayr ka keenaa wa ficlan ayagu waxay isleeyihiin diinta ku hor istaaga waxay isleeyihiin muslimiinta dhib ku gaadhsiiya laakiin rabbina tabaaraka wa tacaala tiisu meel bay taallaa su-aasha isweydiintana waxay tahay reer galbeedow maxaad ka rabtaan nebiganaga maxaad diintanada ka rabtaan maxaad muqadasaadkanaga ka rabtaan maxaad u maagaysaan u aflagaadeen maxaa idinku diray maxaa ka rabtaan maxaa dabada idinka riixay waa su-aal isweydiin lawa war wax kalood ku daahdaan ood ku mashquushaan miyaad weydeen jidooyin badan bay leedahay waxaa ka mid a waxyaalaha gadaal ka riixaya waa soo jiri jirtay xaq iyo baatilku inay laga tamaan baatilkuna markuu xujo waayo inuu caytamo
caadi bay ahaan jirtay qodobka labaad waxay tilmaamaysaa xiqdiga iyo xasadka quluubtooda ku jirtay alla tilmaamay tabaaraka wa tacaala qad badat albagdaa'u min afwaahihim wama tukhfi suduuruhum akbar afkooday cadaawad iyo xumaantu ka muuqatay laakiin waxa qalbigooda ku jira ka weyn intay muujisanayaan xiqdigaasi ay islaamka iyo dadkiisa u hayaanna ayadana way muujinaysaa daafic ka dambeeya wey waxaa ka mid a maalan muslimiinta wadcigooda iyo xaaladooda maanta daciif ah oo xilligay xoogga lahaayeen ma dhici jirin in lagu dhiirado muqadasaadkooda magaalada baqdaad ama magaalada madiina ama magaalada dimashq markuu madaxa muslimiintu fadhiyo sufahada gaaladu kuma dhiiran karin aduuna meelay ka joogaanba inay muqadasaadka muslimiinta isaa ku sameeyaan laakiin wadciga aan ku noolahay iyo burburka iyo xaaladeenna baa keenaysa in safihi kasta iyo midaan qiimo lahaynba inuu nagu dhiirado asbaabta waxaa ka mid ah yurub waxaa haysta sida la ogsoon yahay oo mutasallid ku ah luubiga yahuudda oo saamayn badan ku leh go'aankooda iyo qaraar qaadashadooda iyo dowladahooda iyo shucuubtooda dhammaan oo ku haya gacanta warbaahinta ku haya oo dhaqaalaha gacanta ku haya luubiga yahuudiga ah ee mutaqalqika gudahooda ku jirana saamayn in badan buu ku riixayaa tasarufaadka noocan oo kale inay dhacaan ayagoo ujeedooyin fara badan doonaya inay ka xaqiijiyaan ama ku xaqiijiyaan oo ay ka mid tahay in ay muslimiinta iyo mujtamacaadka reer yurub isku sallidaan ayaguna bannaanka ka istaagaan oo daawadaan halkaana midhaha ka goostaan in dhaqamada israa'iil ay ku kacayso ee ghaza waxay ka samaynayso oo mujtamacaadka reer yurub ay in badan oo ka mida dowladahooda ma ah mujtamacaadka iyo afraadoodu soo baraarugayaan in indhaha laga leexiyo la yidhaahdo maya mushkilo kalaa ina wada haysato muslimiin la yidhaahdo luubiga yahuudiga inuu ka dhex faa'iidaysto dawaaficday ka mid tahay gadaalka riixaya qadiyadan iyo arrintan iyada ah si gaaban maxaa loo baahaya inaynu qaadanno marka innaga muslimiinta haddaynu nahay waa dhacaysaa horeyna waa u dhacday waana soo socotaa maxaa laynooga baahaya seen nabigeenna ugu hilin karnaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh seen diinteenna uga hilin karnaa u difaaci karnaa kow qodobka koobaade waxa waaye waxa la raadinayo ee leequb iyo qacleeyahay loo socdo weynida iyo qadarinta iyo jacaylka qalbigeenna ugu jira nabiga sallallahu alayhi wasallam baa la doonayaa in laga saaro ama la daciifiyo jawaabteedu maxay noqon kartaa marka in jacaylkiisa iyo qadarintiisa aan si labalabno inugu weynaato waa qodobka labaad waxa weeye in aan nolosheenna ku noolayno nabiga salawaatu rabbi wasallam alayhi akhlaaqdiisi dhaqankiisi sunnadiisi muxuu samayn jiray inay ka muuqato nolosheenna guryaheenna dhaqaalaheenna dowladaheenna nidaamkeenna inay ka muuqato noloshii nabi maxamed salawaatu rabbi wasallam alayhi hiilada ugu weyn ee u qaban karna taa iyadaawa waxa ka mid ah in aan raddu ficliga ficiltan wixii soo baxa inaynu dabayacno ka jawaabno intaynu ka gudubno inaynu u gudubno inaynu ummadaha barno nabi maxamed yuu ahaa salawaatu rabbi wasallam alayhi waa ka gaabina inaan ummadaha barno nabi maxamed yuu ahaa samaxadiisi naxariistiisi muxuu adduunka u keenay inaan ummadda inagu gaadhsiino inaan laynaga turjumin inagu istaagno laakiin ina aaway inagii baa kala dhammaan la yaa inagii baa isku maran qadaayaadkeenniina saasay u dulman yihiin inagu inaan nabigeenna barno ummadaha kale oo aynu gaadhsiino wuxuu ahaa ayadana waa nusrada iyo hiilada ugu weyn waxaa ka mid ah in aan diintiisii faafinno oon diintiisa u hiilinno oon dhaqaalaha ku bixinno oo aynu waqtiga ku bixinno oon juhdiga iyo caqliga ku bixinno oo awooddeenna aan isugu geyno inay faafto diintii nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh maxaa yeelay waxay ka baqayaan reer yurub iyo mushkilada ugu weyn ee haysata waxay tahay waxyaalahan ku keenaya asbaabta ka mid ah dhexdooda waxaa ku faafaya diintii islaamka adduunka waa diinta ugu faafid badan waay ayadoon dowlad mucayan oo garab taagan ayna jirin munadamaad dawliya ayna garab taagnayn sida kaniisadoo kale aan lacag lagu garab wadin haddana waa diinta adduunka ugu faafid badan waay yurub bay gashay oo cabsi qabta si walbaa la yeelay way dacaayadeeyeen wax kastay ka sameeyeen waxay isku dayeen inay shucuubtooda iyo islaamka derbi kala dhex dhigaan dadkan soo islaamaya hor istaagaan dacaayaddu halkaasay ku wajahan tahay laakiin maca daalika waa kari la'yihin cabsi waxay qabaan marka
sanadaha soo socda inuu islaamku ku xoogaysto wadamada Yurub oo jaaliyaadka muslimkii xoogaystaan tiradooduna badato dagaalku halkaas uu ku wajahay innagana maxay nala gudban marka inaan xoojino diinta faafinteeda ama Yurub ha ku faafto ama Afrika ha ku faafto ama dhexdeena ha ku noolaato nasriga iyo guusha ugu weyn ee istiraatiijiga ah ee nabiga aan ugu hiilin karno salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ta iyada way waxa ugu dambeeya raali hada waan ku dheereeyay laakiin waa mudan tahay runtii wax weey in la cilaajiyo qodobkan oo xiisad badan ka taagan yahay ka abuuran yahay in si gooniya loo cilaajiyo waa u baahan yahay nusrada nabigeena aanu nusraynayno sallallahu alayhi wasallam waxa kamida in aynaan ku kicin wax aan diinteenu ogolayn maxay yeelay nabiga marka loo hiilinayo waxa loogu hiiliyaa in sharcigiisa la waafaqo in diintiisa la ilaaliyo laakiin looguma hiiliyo in shariicadii la khilaafo dawaabideedii in laga tago in lagu tunto laga tilaabsado taa iyada marnaba hiilo uma aha nabiga sallallahu alayhi wasallam diinta islaamkana hiilo uma aha muslimiintana hiilo uma aha taasi wax weeyaan ayadu ma saxsana munkarka marka shay munkar ah shirki gaalnimo macaasi marka la inkirayo oo ama carabka lagu inkirayo ama gacanba la qaadayo laba shardi bay leedahay shardiga koowaad waxa weeye waa inaad kari karto sida quraanku sheegay sunnaduna sheegtay waa inaad awoodii aad leedahay haddaad gacan wax ku qabanayso waa inaad gacanta awoodeedii leedahay haddaadan lahayn xaaraan waay jooji haddii aad yani wax weeye carab wax ka sheegayso ku inkiraysana waa in carabka aad awood u leedahay haddaadan awoodii lahayn marka qalbigaad aadaysa oo martabadii u dambeysay wadaalika adhafu iimaan saas daradeed waa inaad kari karto munkarka markaad inkirayso oo gacan ama carabaad ku inkirayso shardiga labaad waxa weeye munkarka markaad inkirayso waa inayna ka dhalanin munkar ka daran haddii munkar iyo dhibaato ka daran iyo mafsado ka badan ay ka sii dhalanayso waa xaraan inaad munkarka inkirto nabigeenu ma ku joogay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi shirki baa ka buuxay kacbada asnaami ka buuxday asaga dhibaato loo geystay isagoo sujuudsan baa mandheer korka laga saaray saxaabadiisii baa lagu xadgudbay haddana maca dalika nabigu tilaabo gacana ma qaadin salawaatu rabbi wa salaamu alayhi leesh miyuusan qiiro lahayn maya qiiro waa leeyahay waana xanuunsanaya laakiin marxalada waxay tahay marxaladii gacan la qaadi lahaa maaha marxaladiiba dhibaato ka weyn ka dhalanayso munkarka inaad gacan ku inkirto waa xaaraan quraanka kariimka ah iyo xadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo a'immada qoraalkooda iyo fataawidooda ay kutubtooda tilmaamaya sidaas daraadeed waxaan leeyahay tasarrufaadka la samaynayo waa in aad looga fiirsado waa inayna xamaasada iyo caatifada iyo ciilka iyo xanaaqu uusan inala jiirin inaan shariicadeena meel kaga dhacno masaalixdeennana burburino miisaal haddaan soo qaadano dhacdada hadda aan ka hadlayno ee faransiiska ka dhacday iyo majallada ku xadgudubtay nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh ee karakteerka iyo suurada ka samaysa niman dhalinyaro oo muslimiina baa tilaabo qaaday tilaabaday qaadeen waxaan rajaynayaa qasadkoodu inuu ahaa inay nabiga u nusreeyaan laakiin su-aashu waxay tahay dhibaatadii la geystay ee nabiga loo geystay ma korodhay mise waxbaa iska dhimay si aan u garanno waxay sameeyeen ma sax buu ahaa mise waa khaldanaa xaqiiqadu waxay tahay dhibaatadii inay sii korodhay mooye wax isdhimay ma laha tusaalaana kugu filano majalladaasi waxay ahaan jirtay sida taqaariirta ku soo baxaysa waxay ahayd majallo aan la aqooninoo saakhira ah jees bay sideedaba ka samaysnayd waxay ka shaqaysanay jees buu ahaa madaxday ku jeesjeestaa andimada kolba waxbay qabsadaa ku jeesjeestaa wax qiimo walne ma ahayn waxa la yidhahdaa taariikhdeeda marka dib loo raaco xataa inta nuskhe ee ay daabici jirtay muddo dheer 60,000 oo nuskho lagama iibsanin wax qiimo la ma ahayn markay hadda dhacday maxaa dhacay hal maalin keliya baa waxay daabacday 5 milyan oo nuskhay daabacday 5 milyan ba nabigay ku xadgudbaysa xadgudubkii nabiga way salawaatu rabbi wasalaamu alayhi 5 milyan ba waxa lagu dhamaystay waqti yar gudihii intaasoo luqadoodna waa lagu turjumay su'aal baad isweydiin kartaa war munkarkii ma isdhimay mise waa ziyaaday meel kaga dhici nabigu ma siyaaday mise waa isdhimay xaqiiqadu waa siyaaday waxaad ku dartaa majalladani aan la aqoon jirin wax la yaqaanaad ka dhigtay wayba ka ganacsadaanba laana waxa la yiraahdaa hadaad rabto inaad weynaato oo qiimo yeelato adigoo safiiha ruux qiimo leh baa lagu dhagaa ruux qiimo leh magac leh
haddaad iska laalaabiso magacun baad yeelan waxaa lagu waa kii waagii ku dhagay hebel xataa haddaad waalanta shaqay marka ka dhigteen inay nebiga iyo islaamka ku dhagaan oo marka ay weynaadaan oo la buunbuuniyo maalinkaa keliyeeta dhaqaalaha soo galay majallada iyada taariikhdeeda ma soo gelin lacag baad usoo kasabtay lacagayna heli karin baad u kasabtood siisay waxaad ka dhigtay majallaadka yurub ugu caansan baad ka dhigtay adaa saa yeelay kuwa kalea daba yaallo oo ku dayanaya waxaa ka dhashay muqadasaadkii muslimiinta yurub in lagu xadgudbo waxaa ka dhashay in qawaaniin loo jidaysto muslimiinta yurub lagu cadaadiyo oo gabdhahooda iyo masaajidooda iyo muqadasaadkooda lagu xadgudbo waxaa ka dhashay inuu ka faa'iidaysto luubigii yahuudda ee jaaliyada muslimka yurub siraacu ka dhaxeeyey inay ka faa'iidaystaan oo jaanis ka helaan ay mujtamaca reer yurub iyo dowladihiisa ay ku riixaan imise mafsadaa ka dhalatay billaahi calaykum intaa kadib miyayna munaasib hayn inaynu kala saarno nebiga in loo nusreeyo jidkiisana loogu nusreeyo iyo tasarufaadka khaldan xataa kuwa samaynaya innagaba ha ahaadeen soo nebi maxamed ma ahayn salawaatu rabbi wasalaamu calayh midka saxaabadiisa qaar ka mida intay khalad galeen nebigu sal alla lay wasalam yidhi allahumma innii abra'u ilayka mima sanaca khaalid ilaahu beri baan kaaga ahay kumana jiro wuxuu khaalid sameeyey khaalid baa khalad galay dagaal buu khalad ka galay dad aan layn mudnayn buu laayay markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal alla lay wasalam ilaahu beri baan ka ahay kuma jiro yidhi war miyayna munaasibaya wixii khaladay inaan nidhaahno waa khalad macnaheedu ma waxay tahay gaalaan u nusraynaynaa dhallinyarada iyo da'yarta iyo shacab badan oo iska xamaasaysan markii la yidhahdo war waxa noocaasi waa khalad miisaanka shareecada waxaa lagu leeyahay wadaadkii gaalo u hiiliyey war ma maqasheen ma maqasheen gaaladii buu garab istaagay war gaalo lama garab istaagine diin baa la garab taaganya nebi maxamed diintiisii iyo isagii ayaa la garab taagan yahay waxa khilaafsan da'daas iyo xilliga inaan gaalo garab u noqonno garab istaagoon u huylino habeenkii xalay oo tago ilaahay baanan maga wanahay tabaaraka wa tacaala laakiin diinta nebi maxamed haddaad cadhaysanta iyo haddaad faraxsanta iyo haddaad xiiqsanta iyo haddaad dagaalsan tahay war diinta ilaali oo ummadda dhibaataha u soo jiidin oo nebi maxamed baa intaa sabir la lahaa oo madiine sabrayey oo maka sabrayey ee mafaasid iyo dhibaato ummadda ha u soo jiidin wixii khalad ah ninkii sameeyaba waa khaldan yahay jidka saxda ana waxa weeyaan kolba inta tabarteenna inaan tilaabsanno diintana ilaahay baa u nusrayn doona tabaaraka wa tacaala adiga ama quuso ama qar iska tuur ama waxaad doonto samee laakiin diintani ama ha lala dagaalamo ha laysugu tago saa'iratun ila nasri insha allahu tacaala alislaamu qaadim biidni illah islaamku waa imaan waana xoogaysan si kasta haddii la yadhana lama reebi karayo laakiin inagu aan tilaabooyinka iyo tasarufka hagaajinna biidn illahi tabaaraka wa tacaala saluu wasalimuu cala khatami alanbiyaai walmursaliin allahuma salli wasalim wbaarik cala cabdika warasuulika muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin warda allahuma can alsaxaabati waltaabiciin وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك